السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرم جنة كمركز السود وهذا أدي هذا ومهد سنتين ما أنت وقميص صدق كبش كوباد جانوري سنة كلابد كون هي شان يلا باتنك سنة كعصبة حلب الواقود ديسي مركز حرام وقال كان إن الله الله رمضة وراه لبدي الديارة حلا إسكول بعين قالوا واشنطن دي سي عاصمة أمريكا كوهذا كوحها قرمت كدقدقة هيليهين ملايين إنه لحدا يتضبط قف على لبدي الديارات صارنا إن قف وكبد داري إلا يحد الميات كله محيهين ترام وكهلي wasiirka sidoo kale gaadiidka oo ka hadlay wasiirka gaashaandhigga oo ka hadlay arrimahaas ayaan rabaa inaan idin la socodsiiyo sagaalkii maalmood ee la soo dhaafay oo ku dhawaada 8,000 oo qof oo dambiilayaal ah u badan Mareykanka guud ahaan ciidamada ICE ay ka soo qabteen Soomaali ayaa ugu badan ayaa la leeyahay wadamada Afrikaanka ah ee haysta amarada ah in wadanka laga saaro oo maxkamaddu ay ku amartay in wadanka laga saaro arrintaasna waa la socodsiinaya iyo sidoo kale wasaaradda amniga gudaha oo TBST kala laabtay temporary protection status kala laabatay ku dhawaada 600 oo kun oo wadanka Venezuela u dhalatay Soomaalida weli ma u furan tahay TBS inay xareystaan sidoo kale waan idin la wadaagayaa balse marka hore aan ku hormaro xalay abaara 3 saac ay habeenimo markii ay ku dhaweed ayaa diyaarad ishtad rakaab oo shacab ay saaran yihiin oo ka soo kicitay magaalada Wichita ee gobolka Kansas oo nambarkeedu ahaa 5342 oo diyaaradda American Airlines ay operate gareynaysa isla markaana diyaaradaasi ahayd CRJ 700 waxay isku dhaceen diyaarad helicopter oo militariga uu leeyahay oo Black Hawk la yiraahdo H60 waxa laga helay labadan diyaarad arrinta ilaa hadda baaritaan ayaa ku socda laakiin way is arkayeen maadaama ay hawadu kaleer ahayd nalalka diyaaradahan ay isku muuqdeen laakiin ilaa hadda sababta shilkaasi u dhacay hay'adda NTSB-da oo National Transportation Safety Board iyo sidoo kalena FAA Federal Aviation Authority labadaba waa ay baaritaan ayaa ku socdo marka labadaasi diyaaradda helicopterka ayaa dhaxbartamaha waxay ka gashay diyaaradii shacabku ay saarnaayeen 60 qof oo shacab iyo 4 laba duuliye iyo 2 qof oo diyaaradda ka shaqeynaya flight attendant ayaa saarnaa diyaaradda kalena 3 askari ayaa saarnayd dhammaantoodba 67 qof oo ay dhinteen 300 oo kooxaha gurmadka degdega ah ayaa ka howlgalayay labada diyaaradda waxay ku dhaceen wadiga airportka aan ka fogeynay Potomac River leerada aad ayuu u qaboon Washington baraf xoogan ayaa ka dhacay toddobaadyo la soo dhaafay marka kooxaha quusa ay ku adkaatay in ay qof nool badbaadiyaan ilaa hadda waxa leeyahay 720 qof oo diyaaradii shacabka saarnaa 60 qof ayaa meydkooda la helay 37 ayaa la laayahay diyaaradii helicopterka 3 askari saarnayna mid kamid ah ayaa la helay marka diyaaradda shacabku dhaxbartamaha ay ka kala go'day waxayna ku dhacday wadiga sida darteed hadda howlgalkii badbaadinta waxa uu isku bedelay soo helista meydadka maadaama wadiguna uu aad u qabow yahay sida darteedna xitaa uu meelaha qaar baraf yahay marka biyaha qofku waa ay qaadi karaan meelo kale inay geeyeen ayaa laga yaabaa baaritaanku marka ilaa hadda badbaadin ma socoto laakiin waxa socda sidii dadkaasi loo soo heli lahaa waxa la soo bandhigay baaloodada iyo labadii shaqaalaha diyaaradda ka shaqeynaya kuwan sawiradooda labadii shaqaalaha flight iyo waliba labadii pilot waxa sidoo kale ku jiray dad ciyaaraha barafka ciyaara skating la yiraahdo laba qofood oo ruushka u dhalatay Wichita ayaa ciyaar ay ku soo ciyaareen waa ay soo laabanayeen iyaguna dad ka dhintay ay ku jiraan madaxweyne Trump isla xalaba bartiisa Truth Social waxa uu ku soo qoray aniga iyo waliba xaaskeyga 340 milyan oo shacabka Mareykanka ah oo ka tacsiideynayaan shilkaasi diyaarad waxaana uu sheegay in hawadu ay kaleer ahayd laadadka diyaaradahuna ay isku muuqdeen marka waxa uu su'aal ka keenay sababta helicopterku ama ay kor u kici waysay ama hoos ama xitaa ay ka leexan waysay diyaaraddan shacabka arrintaas wuxuu yiri waa laga hortagi karay wasiirka sidoo kale gaadiidka Sean Duffy oo shalay maalintiisii ugu horeysay ee si buuxda shaqada ugu soo galay maadaama talaadii sanadku ay meel mariyeen isaguna ilaa ay xalay waa uu soo jeeday arrintana waa uu ku howlanaa wasiirka gaashaandhigga Pete Hegseth isagana dhinaca gaashaandhigga ay ka qusaysaa maadaama diyaaradda helicopterka militariga uu lahaa sida darteed wuxuu yiri anagana baaritaan ayaan dhankeena ka wadnaa marka ilaa hadda 67 qof ee saarnayd labadaasi diyaaradood dhammaantoodba inay dhinteen ayaa loo maleynaya ay leeyihiin kooxaha ku howlan gurmadka degdega ah oo 300 ka badan sidaas darteed waan arki doonaa sidoo kale waxyaabaha ka soo kordha dhinaca kale ciidamada ICE iyo hay'adaha kala duwan ee la shaqeynaya howlgalkoodii ay wadanka uga soo qabqabanayeen dadka dambiilayaasha ay ku sheegeen ayaa ka soconaya sagaalkii maalmood ee la soo dhaafay 7500 oo qof ayay gacanta ay ku soo dhigeen talaadii ugu dambeysay 1016 qof ayaa la soo qabtay oo MS13 ka tirsan Chicago, New Orleans, San Diego, Columbus, Ohio, Detroit, Cincinnati meelahaas kala duwan ayaa howlgalada ay ka sameeyeen saaka xitaa waxaan arkay Minneapolis aroortii in la galay marka ciidamada ICE howlgalka waxay bilaabaan 9 saac oo habeenimo ama 10 saac oo habeenimo waa xilliga hurdada meesha ugu macaan ay marayso marka xilliyadaasi ay howlgalkooda
shaqadooda bilaabaan dadka inay guryahooda ugu tagaan oo ay kasoo qabtaan ama qofku uu shaqo u kacayo ama shaqo uu kasoo laabanayo xilliyadaasi waa xilliyada ay dadka ay shaqadooda ay si toos u bilaabaan ciidamada ICE waxaa amar lagu siiyey maalin kasta 1200 ilaa 1500 oo qof inay gacanta ay ku soo dhigaan haddii ay ku soo dhigi waayaan waa la ganaaxaya ayaga naftooda ayaa ganaax mutaysanaya marka amara la duldhigay hal qof oo soo galootiya in wadanka laga masaafuriyo $10,000 ayaa ku kacaysa laakiin dadka magangelya doonka ah oo goboladu ay siiyaan meelo ay seexdaan habeenkii halka qof waxaa ku baxaya $352 marka waxaa la isleeyahay haddii la isbarbar dhigo in la masaafuriyo miyaa wanaagsan mase in habeen kasta dadkaasi la siiyo $352 oo ay ku seexdaan meelaha ay seexanayaan waxyaabaha lasoo qabtay waxaa kamid ah kooxihii gaangiska ee Trent de Argao MS-13 ninka la yiraahdo Anderson Zambrano Pachao waxaa la leeyahay waxa uu ka tirsanaa kooxda Trent de Argao ee wadanka Venezuela ka timid horey ayuu dhibaatooyin kala duwan uga geystay wadanka waxaa la leeyahay xitaa bambooyin ayuu iibsan rabay marka la doonayay marka la soo qabtay 2 maalmood ka hor marka howlgalku weli sidaas ayuu ku socdaa dhinaca kalena wadamada Afrikaanka oo dadka ugu badan amarka ay qabaan wadanka laga masaafuriyo Soomaaliya ayaa ugu badan ayaa leeyahay guud ahaan dadka Afrikaanka ah oo maxkamaddu ay ku amartay in wadanka laga saaro 38,948 waayo Soomaaliya ayaa ugu badan oo 4,090 qof Soomaalida amarka oo garsoore uu ku amray in wadanka laga masaafuriyo ayaa la leeyahay Nigeria ayaa ku soo xigtay 3,690 Ethiopia ayaa ku soo xigtay 1,713 Eritrea ayaa ku soo xigtay 973 markaas qaar kamid ah website-yada ayaa qoray marka sidaasi ayaa ay leeyihiin dhinaca kalena temporary protection status ilaa iyo dhowr wadan ayaa dowladda Mareykanka ay siisaa marka wasiirka amniga gudaha Christine Om ayaa waxa ay shalay ku dhawaaqday in ay kala laabteen TPS ilaa iyo 600,000 oo wadanka Venezuela ka timid dadkaasi waxaa loo ogol yahay sababta TPS loo siiyo wadamadaasi waxay tahay in wadankan ay ku noolaadaan kana shaqaysan karaan haddii ay rabaan waa ay safri karaan maadaama uusan ammaan ahayn in wadankooda ay ku laabtaan Soomaalidu ay ku jiraan waan idin waadaagaya marka dadkan TPS laga kansalay waxay ugu ekeed October 2026 Christine Om waxay tiri wasiirkii hore Alejandro Mayorkas markii uu xilka ka sii dagayay ayaa uu u kordhiyay TPS dadkan reer Venezuela marka gabi ahaanba waa kan kasalnay sidoo kale waxaa jira dad kale oo Venezuela u dhashay oo TPS tooda ay ku egtahay April 2025 iyo September 2025 marka iyagana inaan loo cusboonaysiin doonin ayay u badan tahay TPS waxaa go'aan ka gaaray wasiirka amniga gudaha isaga ayaa kordhin kara isaga ayaana joojin kara marka haweeneydan Christine Omna tahliisha Trump ayay cabtay marka ma u maleynaya xitaa Soomaalida Etoobiyaanka in TPS haddii ay ka dhacdo loo kordhin doono sidoo kale Soomaalida waxay soo weydiinayeen dadka TPS ma xareysan karaan TPS wasiirkii hore Alejandro Mayorkas 19 July sanadkii 2024 ayaa 18 bilood oo Soomaalida u kordhiyay waxayna ka bilaabanaysay September 18 sanadkii dhamaaday 2024 waxayna ugu eg tahay bishii saddexaad ee March 17 sanadka 2026 marka dadka markoodii hore isku diiwaan gelinaya waa isku diiwaan gelin karaan laakiin shuruud ayaa la socota marka dadka hore u haystay waqti ayaa jiray ay ku diiwaan gelin kareen isku diiwaan gelin kareen sida aad aragtaan laakiin dadka cusub oo markoodii ugu horeeyay TPS ku diiwaan gelinaya laga soo bilaabo 22 July sanadkii 2024 ilaa maalinta ugu dambayso ee TPS ay ku egtahay bisha saddexaad ee March 17 sanadka 2026 oo isku diiwaan gelin karaan laakiin shuruudda la socota waxay tahay qofku in uu Mareykanka joogay gudihiisa uu address ku ahaa July 12 sanadkii 2024 marka July 12 sanadkii 2024 kadib haddaad Mareykanka soo gashay TPS xaq u malihid oo ma isku diiwaan gelin kartid haddana qofku physical presence waa inuusan wadanka intuu ka baxay oo Canada meelahaas aad uusan soo laaban ama Mexico uu aaday waa inuu si jismi ah u joogay September 18 sanadkii 2024 marka qofku markuu July soo galay waa inuusan wadanka ka bixin oo wadamo kale uusan aadin wadanka dhex joogay oo si physical ah u joogay marka haddii aad shuruudaasi buuxisay oo July ka hor aad soo gashay 12 sanadkii 2024 TPS weli eligible ayaa u tahay in lagu ogolaaday in kale waxay ku xiran tahay dawladda laakiin waa codsan kartaa oo waad apply gareyn kartaa ayaa macnaheedu ay tahay marka dad fara badanna arintaas TPS Soomaalida ayay soo weydiinayeen dad fara badan waxay soo weydiinayeen arrimaha lottery-ga
lotteriga Trump horta ma uusan ka hadlin laakiin wareegtooyinka waxa ku qornaa wax kasta oo qaab kasta oo wadanka lagu soo gali karo 9 maalmood ayaa la joojiyay marka Trump si cad ma uusan u carabaadin laakiin lotterigu arintaas ayuu hoos imaanaya 9 maalmood kadib ayaa la arki doonaa hadii dadkaasi lotteriga iyaga nafsadahantoodana wadanka ay imaan karaan iyo hadii aysan imaan karin si toos ah Trump uusan uga hadlin wareegtooyinkana ma aysan ku qornayn laakiin waxay soo hoos galaysaa